labadii payout bishan ka kala helayna waa kan 5011k ay kala yihiin. Actually tiradan waxa weeyaan waxaan la qabsaday after 2 years consecutively aan u arkayay dhibaato badan baan u soo maray, iska culays bay ahayd. Laakiin if you stick to it oo aad u sabartid oo u dulqaadatid oo study garaysid oo waqti aad siisid, waxaad arkaysaa casaankii oo isku bedelaya akhtar, all the losses oo win isku bedelaya, adigoo khaladaadkaagii wax ka baranaya, adigoona same mistake every trade aan sameyneen every day waad ogtahay khaladaadkaaga, but you just keep repeating instead of learning. So dad waqti isira gelisid oo si strategic ahaan aad u fadhiisatid oo tiraadid okay khaladaadkan galayo waan garanayaa, but why do I keep repeating? imso qof baa gasha trade ay ogtahay inuu setupkaaga ka mid ahaan, but you still waad galaysaa just to see inaad badisay iyo inaanad badin. xitaa dad badisay inaanad setupkaaga raacin oo aad ku khaldan tahay. aniga dad badan bay igu oran jiray waxani waa time waste, why don't you go to school, why don't you study, so mataqaanid. laakiin after many years of losses markaan fadhiistay oo si xaqiiqatan isku eegan iraaday you need to change your ways, waa inaad eegtid khaladkaad sameynaysid, because faa'iido ma ka helisid inaad chase garaysid just wins, laakiin waa inaad haysatid setup. xitaa hadaad los garaysid ku oranaya maanta waad fadhiisanaysaa, xitaa markadku hadduu fiican yahay oo dad badan lacag helayo and follow the rule adigoo aad haysatay ee aad dhigatay ee setupkaagu ku sii sheegayo. asxaabtayda dad badan baa igu lahaa maxaad waxaan u wadaa jaamacadaada madgashid oo iyaguna lacag bay helayeen, anna meeshaasaan fadhiyay working 10 hours every single day warehouseka. so mataqaanid but I stayed consistent throughout the years. so mataqaanid alxamdulillah for 2 years waxaan ahaa green days nearly every month. so mataqaanid not every day sidan ah, maalmaha qaar way ka badan tahay, maalmaha qaarna ka yar tahay, but laakiin ruleka marka raaco aan study gareeyay khaladaadkayga I'm more consistent than I ever was. waxa ku dhata isbedelina ma aha setupka. waan idin tusin doonaa maalin setupkan qaadan jiray markaan bilaawayay trading iyo hadda it's like almost 70% waa the same. waxa ugu weyn ee isbedelay waxa weeyaan just the discipline iyo psychological mindsetkayga. idinkuna dad badan baa garanaya, waad garanaysaan markaad winning trade aragtiin, you know the criteria, waad garanaysaa setupka waa setup fiican, waad garanaysaa. haddana at the same time gelinka dambe waxaad galaysaa trade aanad reason garanayn waxaad u gashay oo dareen umaad ku gashay, setupkumaad gelin, maxay ahayday criteriaaga muu buuxinin, but still waxaad rabto inaad gashid si aad u dareentid marxaladan aan ku jiro waan ka bixi karaa. taasna waa khaladaad badan iyo in my opinion big time waste. waxaa markaa lagu qaatay inaad iska daysid haddaanad rabin inaad discipline yeelatid.